wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa sheegaya in shirkii maalmihii ugu dambeeyay magaaladaasi uga soconaya madaxda ugu sareysa dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada la sheegay in gabi ahaanba lagu soo kala dareeray. Wararkii ugu dambeeyay caawa naga soo gaaraya Dhuusamareeb ayaa sheegaya in wax kulana caawa aysan ka socon magaaladaasi, waxaana la sheegay maamul goboleedyada hogaamiyashooda iyo madaxweynaha Soomaaliya gabi ahaanba ay ku sugan yihiin hooyga ay ka degan yihiin xarunta madaxtooyada maamul goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb. Shirka oo maalmihii ugu dambeeyay ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ayaa labadii maalin ugu dambeysay waxa uu galay xaaladihii ugu adkaa, waxaana laga doodayay xaaladda gobolka Gado ee isku qabsadeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, taas oo ahayd in gabi ahaanba ciidamada dawladda ay ku daadgureysay gobolkaasi laga soo saaro, halka dawladda Soomaaliya ay ka biidiiday arrintaasi, taasna ay keentay in maamulka Jubbaland gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi oo shirkaasi isaga baxo. Wararka qaar ayaa sheegaya in beesha caalamka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho faragelin xoog leh ay ku yeelatay arrinta kala tegidda siyaasiyiinta ku shirsan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Saameynta ugu badan ayaa waxaa ku yeeshay safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto iyo wakiilka qaramada midoobay arrimaha dalkeena Soomaaliya James Iswaan, kuwaasi oo cadaadis xoogan saaray labada mas'uul ee maamulada Jubbaland iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa burburka shirka kadib warbaahinta isugu yeeray isagoona shir jiraa'id ku qaban lahaa Dhuusamareeb, kaas oo ku sheegayo in gabi ahaanba oo fashilmay shirkii magaalada Dhuusamareeb afar uga soconaya madaxda dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada, balse waxaa la sheegay in safiirka Mareykanka iyo wakiilka qaramada midoobay arrimaha dalka Soomaaliya cadaadis xoogan ay saareen madaxweynaha maamulka Jubbaland, kaas oo la sheegay in gabi ahaanba uu joojiyo shirkii jiraa'id oo ku qaban lahaa Dhuusamareeb. Sidoo kale waxaa la sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isku dayay in gelinkii dambe ee maanta ka soo dhoofo Dhuusamareeb isagoona soo gaara magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya si maalinta berito Sabti ah 6 bisha Febraayo kulan ula yeesho labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya si uu ugu warbixiyo xaaladihii uu soo maray shirkii magaalada Dhuusamareeb, balse beesha caalamka gaar ahaan safiirka Mareykanka iyo kan qaramada midoobay ay isku dayeen in ay baajiyaan madaxweyne Farmaajo isla markaana lagu cadaadiyay inuu ku sii sugnaado Dhuusamareeb, iyagoona doonayay in gabi ahaanba shirkaasi uusan fashilmin. Beesha caalamka oo shalay war ka soo saartay shirka magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegtay in halka uu ku jiro oo kaliya inay siyaasiyiintan ku shirsan Dhuusamareeb ay halkaasi ay ku sii sugnaadaan inta ay ka heshiinayaan, balse waxaa muuqata in shirka magaalada Dhuusamareeb haddii lagu kala kaco ay tahay xaalada dhibaato kale ay si abuuri karto isla markaana dalka ay gelin karto qalqal siyaasadeed oo laga cabsi qabo in dagaalo ay ka dhacaan Soomaaliya. Beesha caalamka ayaa u tafaxeedanaysa sidii siyaasiyiinta cadaadisyo xoogan ay u saari lahayd si ay halka ay ku jirtana ay u soo gabagabeeyaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isku dayay inuu helo muddo kordhin 1 sano ah, balse arrintaas ayaa waxaa ka soo horjeestay qaar ka mid ah saamilada siyaasadeed dalka hab ugu badnaatee midowga musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. Shirka 3 maalmood ee ugu dambeysay ka soconaya Dhuusamareeb ayaa waxa uu ahaa mid laba waji ah, maamulada Puntland iyo Jubbaland oo isku dhinaca madaxweynaha Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo Farmaajo isku dhinac ahaayeen. Haddaba la arki doono shirka haddii lagu soo kala kacay natiijooyinka ay hiigsan doonaan ragii ku shirsanaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Ismaaciil Abubakar, Bulshada Kasmaal TV, Muqdisho.